tageen qurbahay tageen adduunyada la dhil garayeen marka ismalihi maanta Soomaaliya bad laga qaadanayo aragti ahaanteeda muddo way qaadanaysaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu yiri haddii aan riyadan rumoobi weydo caruurteeda rumoobay tusaale wuxuu soo qaatay boqor Haile Selassie Itoobiya markii laga diiday inuu wabiga Nile-ka Suudaan iyo Masar ay ka diideen inuu biyo xireen sameeyo wuxuu yiri caruurteeda dambe ayaa biyo xireen sameey doona Itoobiya oo ay ku guuleysteen marka damac waa iska jiri doona laakiin haddana ismalihi waxa way meel dheer ay tagi doontaa way wali daawadayaal barnaamijka madasha dhalinyarada ayaan dhex mashaaxeynaa qaybaha dhexe barnaamijka madasha dhalinyarada wasla soo gaarnay toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin barashada sooyaalka ama taariikhda Soomaaliyeed waa mid magurtan ah oo dhalinyaradu iyo sidoo kale qof waliba Soomaali ah laga doonayo inuu barto barashada dalkiisa ama taariikhda uu leeyahay dhulkiisa Soomaaliyeed barnaamijka waxa isla falaqeynayna oo markaasi marti ku ah qoraa Soomaaliyeed oo magac dheer Mustafa Farsame Mustafa Sabriye Mustafa aad u mahadsan yahay aniga Sumaya Cabdiqaadir ayaa barnaamijka idin la socodsiinayaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed waan ku saaxiibnay oo waan ka daawanaysaan Mustafa marka fiirino dhalinyaro ahaan door noocee markaas u furan in maartay dhalinyarada Soomaaliyeed ku difaacaan badooda ay dhul markaasi damac waliba dal waliba uu ku doonayo marka la fiiriyo Itoobiya kaliya ma ahan waxa jiro dalal kala qarsoon balse adana Soomaalidu dhalinyaradoodu door caanka ay ku leeyihiin doorka ugu muhiimsan waxa waaye in dhalinyaradu sameeyaan madalo doodo lagu qabanayo oo lagu la fakurayo bal damacan goortu soo bilaamay because cadawgaaga waxaad u baahan tahay xooraantiisa inaad ogaatid cadawgaaga fikirkiisa inaad ogaatid iyo sidoo kale mudaharaadyadu waxa waaye waxa ugu muhiimsan ee caalamka la tuso qaab silmi in loo nabadgeliyo ah mudaharaad loo sameeyo sidii mudaharaadyadii asbuucyadii dambe dhacay waxaad u qabtaa in laga jifto laakiin in la sii baraarujiyo dhalinyaradina lagu baraarujiyo dadka mutacalimiinta si gooni ah in isxilqaan gooni ah ay sameeyaan maxaa yeelay iyaga wax fahmi kara laakiin dadkan caadiga iska civil society iska waxa waaye aad ugu baraarugsan marka way markaan fiirino dhalinyarada Soomaaliyeed akhrintu waa shayga ugu muhiimsan waxaad ku ogaan kartid waxa laga yaabaa in ay jiraan buugaag taariikhda Soomaaliyeed ka hadlayso oo kale bal markaa fiirino xagga dhalinyarada aqris la'aanta haysata daba sanadahan dambe ma la dhihi karaa waa mid u sabab ah in ay baranin ama ay xifdinin barashada dalkooda absolutely muhiim waaye maxaa yeelay xiliyadii hore Soomaaliya waxa jiri jirtay dawladii rayidka iyo militarigaba waxa la bari jiray maadaama waxa jirta maadaama la yiraahdo shu'uun maxalliya ama local affairs waxa waaye maadaama lagu barto dadka markaas xilka haya dawlad goboleedyada ama yaani goboladaas dadka madaxda ka ah magacyadooda degmooyinka dalka degmooyinka taariikhdooda marka qofku isagoo meeshiisa joogo barana laakiin qofkii wax macquul ah inuu jaamacad ka soo qalin jabiyo taariikhdii degmada iyo taariikhdii wadankiisa uu ku noolaana oo uusan baranin hadduu ataa baran lahaa dadku ku liidayaan oo yaani wax micna uusan u sameeynin marka taariikhdu wuxuu aaminsanahay aniga muhiim inay tahay dadka historianka adduunyada waa qiimo gooni ku leeyihiin oo wax baara marka laakiin bulshadeena oo bulshada oranska society bulshada faham guud uusan ka jirin waxa waaye wax badan ayaa lumaya maalin kasta waxba naga lumaya waxa la yiraahdaa markastoo qof waayeel Afrika dhinto waxa ololeysa maktabad marka qof walba oo waxa maalintu dhinto waxa waaye taariikhdiisa lumaysa because taariikhdeenu library iyo maktabado kuma kaydsan waxay ku kaydsan tahay maskaxda dadka Soomaaliyeed qof waayeel markuu dhinto wax badan oo la tagaya ayadoo waxaas laga reebin ama documentary laga sameeyo ama laga qorin ya loo sababeyn karaa marka bulshada qayb muhiim ah ayaa ka qaadanaya because dawlad kaliya wax ma qaban karto qofka ku xeeran oo academic oo waalidkaas la joogo waa inuu xusuus reeb ka reeb taas ugu muhiimsan dawladuna madalo waa inay furto adduunyada warbaahinta waxay leeyihiin qaybo documentary oo dadka waayeelada lagu wareysto way joog dadkaas wax badan oo waxay hayaan aan qorneen oo dhacdooyin ay goobjoog u ahaayeen marka muhiimadda waxa waaye in taariikhdaas aysan lumin hadday luntana taariikh dhana baaba'aysa way waa cajiib oo maasan tahay markaan fiirino dawladda Soomaaliya waxay soo martay madaxyo kala duwan dalka soo hogaamiyay qayb weyn ka qaatay ilaalinta difaaca badda dhulka Soomaaliyeed ama xuquuqda Soomaaliyeed marka dal ayraahda siyaasi waliba ama dawlad waliba dalka soo maray
muxuu markaasi uga tagay oo inuu ilaaliyo oo kale dhulka oo kale maxaa loogu xasuusan karaa oo hore